ilaa 30 sanadood ee tagay waxa aad iyo aad u batay hogaamiyayaasha dhaqanka ee Soomaalida ilaa imika ay gaareen heer tirooyinkoodiiba la garan waayo. arrintan ayaa waxa laga saarayaa burburka ku dhacay dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba meelo fara badan oo ka tirsan geeyiga Soomaalida. dhibaatadan ayaa waxa ay noqotay mid si weyn looga dareemo meelo fara badan oo dadka Soomaalida ay degan yihiin. waxaana la isweydiinayaa hogaamiyayaasha dhaqanka ee tiradoodu ay sidan u badatay ma waxa weeye qaar ay bulshada Soomaalidu ku macaasheen mise imika dhibaato bay ku yihiin. wariyaha iyaga Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa inoo haya warbixintan gaarka. muddooyinkii ugu dambeeyay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxa si weyn ugu soo badanaya boorarka ay ku sawiran yihiin madax dhaqameedka kuwaasi oo lagu shaacinayo xafladda caleema saarka amaba caanu ku shubka iyagoona ay isleekaadeen magaalada tan Hargeysa boorarka ay ku sawiran yihiin laguna xayeysiinayo meheradaha ganacsiga iyo waliba kan madax dhaqameedka. tirada madax dhaqameedka Somaliland ayaa waxay hadda kor u dhaafayaa 10 kun oo madax dhaqameed magacu doonaba ha sitee iyadoo waqtiyadii horena ay ahaayeen madax dhaqameedku kuwa tiro yar oo ay kooban tahay tiradoodu gaaraysana ilaa iyo 10 madax dhaqameed. haddaba Muuse Cali Faruur oo kamid ah dadka ku xeesha dheer dhinaca dhaqanka ayaa waxa uu iga warramayaa waqtiyadii hore sidii loo soo dooran jiray madax dhaqameedka iyo waliba tiradooda. maanta waxay maraysaa wax tii hore iyo tan maantu tawo waxaan shaqo isku lahayn adeer. anigu waxaan noolaa iyadoo Soomaali Ethiopia Soomaali NFD Soomaalida Somaliland Djibouti iyadoo 3 ugaas ama suldaan ama boqor magaca lagu jaayay man garanaya. maantana jilib bahar reeraha Hargeysa dega dhowr jilib ayaa 24 iyo 26 maraya intii oo dhowr kubay maanta maraysa. sharcigii uu ka baxo maanta garaad iyo suldaan iyo ugaas kii ay arki jireen maaha. berigii hore wuu adkaydo waa la dooran jiray suldaan curada. anigu kuwan halkan ka soo jeeda de suldaan maxamed baa noogu horeeyay ina dhabeeya ayaa noogu horeeyay. waa la dooran jiray sida baarlamaanka iyo madaxweynayaasha dhaqan baa jiray. qoysna boqorku leeyahay qabiilo xulashada baa loo oran jiray. inamadii boqorku dhalay ama ugaaska ama suldaanku laga qaadi maayo laakiin qareerku la soo baxa ayaa suldaan noqon jiray. waxa kale jirtay maahmaah la yiraahdo suldaan waa inta saad qoyantay inta odagu nooliyay inamada ka muuqan jiray ka bedelaya. waxa kale oo ilaahay foodkii sirta ahaa oo muxuu ahaa guurtida 40 ama 50 guurtida baarlamaanka bay ka dhignaa. baarlamaanka dhaqanka guurtida baa loo oran jiray. kolka la soo dooranayana geetoog baa loo oran jiray. geetooga reer hebel markaa geetoog ay soo adam guurti la isku oran jiray ilaa marka ay doodayaan ilaa ay ku heshiiyaan waa inuu ogaanin ka diidariga kale. sababtoo waxa waxay oran jireen garaada lagu heshiin geed lama keeno ugaas dooyaysan lagama doodo. suldaanku arkaya intii la xambaaro waa inay ogaanin intii diidarayd iyo inta kale. maxaa marxaati u ahaa cawad qabaano suldaan diiriye markii la dooranay aad ugu loolamay oo rag ka riday nimanka ugu adag sida marka loo boqro waa nimanka digoodi kale wabar kale. inta odaygu dhalay ayaa loo yeedhaya waxa la oranayaa halkaas tuba koow itixaam baa laga qaadaya quraanka lagu barantaynaya kitaabka hadda taro qaado waa dhacday waa inuu dusha ka hayaa ninkaas. sidaasay diinta ku yir haddana waxaad arkaysaa nimanka islaam diinta ku ahaa abaar baa dhacaysa roob doon baa la doonayaa in la dhigo inta biyo iyo caano iyo kaadhargiya sharaab ayaa lagu oranayaa geedkaasi geed lagu xidhaya inta kaadidu ku qaba roobku waa inuu daa. Muuse Cali Faruur ayaa waxa uu sheegay inuu hoos u dhac weyn ku yimi meeqaamkii uu joogay hoggaanka dhaqanka Soomaalidu waqtiyadii hore. waxa kale oo uu tilmaamay Muuse inuu dhaqankii hadda sii lumayo siina baabaayo loona baahan yahay in dhaqankii dib loo soo celiyo. dhaqan anigu maanta tan suldaankan maanta suldaano waa qaar liiskii hore kuwa wixii ka sii jooga ee suldaanadii iyo fiilooyinkii hore wixii way jiraan laakiin nimanka intuu awr goora ku qoro laba baago qaadana geynaya cajarkii 20 baabuur baa la soo dawagalaya ugaasada iyo suldaan reer baa leeyahay. haddaba aniga raajilkaya dirada dadka waxba ay ka waraysanada kuwa waa laakiin dhaqankeedaasi wuxuu u baahan yahay in ubadka loo qoro oo buug weyn laga qoro
ilaa 500 oo maahmaahood ama gabay oo laga tiriyay baan hayaa kuwa hore ayar waxaan ku ori anigu waxaan maanta taagnahay ninka suldaan muuse cali farodiga inuu yahay wallaahi oo billahi saasaan rumaysnay ninka boqoriga ama suldaan ama madax dhaqameed bay ku sheegay inuu yahay baan rumaysnay dee madax dhaqameed kolkaa dhaqan baan ku sheegayaani dee dhaqankii maanta ma hayo dhaqankii u baabay adeer dhaqankii loo gurmadaa buu u baahan yahay waxaan u baahan yahay tiifiyada iyo nimanka saxaafadiina wax ka qoraan aad baad maasanta muuse munaasabadaha loo qabanayo madax dhaqameedka kala duwan ee Somaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku soo badanayaan Somaliland iyadoo waqti horena wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ay sheegtay inay hakisay xafladaha caleema saarka madax dhaqameedka balse taasi aanay suuro gelin oo ilaa hadda ay socdaan cabdirashiid cabdiwahaab xuseen Universal TV Hargeysa